kasoo jeeda gobolka Sool iska horimaad baa ka dhacay deegaanka Kalabayd dad baa ku dhintay arinta halkee la marinaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxay arintaas waxay u baahan tahay in la baaro oo la ogaado waxa jira dadka ku qaatay gacanta sharciga si askariga iyo askarta ayaa ku qaatay marka baaritaan rasmi ah la helo waa in cidii markaa dambiga gacanta ku qaadatay ama waxaan leeyahay sharciga gacanta ku qaadatay ee falka samaysay waa in markaa tallaabo sharciga laga qaada ana in la ogaado anigu de ma joogin mana ogi laakiin waa in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo militariga iyo hay'adaha kale amniga ay ogaadaan sababtoo in waxaasoo kale ay ka dhacaan magaalooyin maamulka jiray waqti dheer ma aha cidda hawsha ku shaqalay waa inay tallaabo sharciga ka waafaqsan labada dhanba haddii uu dadka shicibka ah ee meesha qoryaha ku haystay ay qaadeen tallaabaan ku habboonayn oo ay gacanta ku qaateen sharciga waa in laga qaadaa tallaabo haddii saraakiisha iyo askarta meesha jooga ay sharciga iyagu gees mareen hadday labadoodu dambiga leeyihiinna way jirtaa labadooduba ay ku sifoobaan inay labadooduba sharciga gacanta ku qaateen waa in labadooduba sharciga la keenaa ay ciddii falka geystay wixii dhintayna allah u naxariistaan leeyahay iyadana wax lagaga xaalo iyo wax lagaga hadlaa ka jira inta marka waa lagu jiraa gacanta albaayad gacanta sidaan ogahay gacanta lagu hayaa waa lagu jiraa waa la wadaa baaritaanka militarigu waa socdaa ka kale hay'adaha amniguna wuu socdaa xildhibaan waxaa jirta in Somaliland iyo Cali Kharkhay wada hadal ku jiraan oo meel wanaagsan marayo sidoo kale waxaa jirta faragelin ay Puntland ku hayso sida koox dhawaan ku weerartay Buuhada Cali Kharkhay ay sheegatay in Puntland ay arrintaas doonayso inay fashiliso oo maamulka bulshada dabada ku haysa sidoo warta أنا horta Puntland ma ogi weeraraysa wax Cali Kharkhay cid la heshiiyeyna ma ogi ilaa hadda wuxuu sheeganayaa inuu xukuumad khaatumo la yiraahdo xukuumad khaatumo la yiraahdo inuu jiro anigu ilaa uu yiraahdo Somaliland darbaana waxaan u aqoonsanahay inuu yahay ninkii dhibtooday cid kasta hala nagu sheed garayso ama hawo waxaan siyaasiyan markaan Somaliland ka hadlay waxa weeye ilaa uu yiraahdo daraad baan dhageysanayo wuxuu lahaa haddaan nahay xukuumadda khaatumo waxaanu aadaynaa booqo Somaliland state within state حكومة كهوس جتين لقى دقو ما إلى أو نسمع لاندر النقطة ووحى وكهذا ليه وقرأ عندك الكونستيوشن الشرعي إيو حدود الشرع وحول يعني وحروا قصنا يقولون عن سوماليلاندر نبقى تذكر يديك وقت جو ورنتها عدايو يعني أولا معاملة ناس دي سوماليلاندر